gabdho badan waxaa jiraan yiraahdeen waxaan u soo gelisaa waxyaabo ilmaha nala korinayo ilmihii waxaa moodaa ayaga dhan isku mid inay yihiin gabdho waxyaabo badan oo ilmaha niga caawinayo cuntooyinka inay cunaan iyo ayaga cuntada wax yar ay ka taabteen waxyaabo kaleeto oo jirkooda uu ku korayo insha Allah biidnillah la socda kuwan soo geliyeen soo daawada haddii aan ugu cusub tahay cabitaanaadkan aan hadda meeshan cabitaankan aan rabo inaan sameeyo qaabka u sameynayo fiirsada please haddii aad nagu cusub tahay subscribe channelka asxaabtaada la wadaag wixii fikrada hoos noogu qor hadaa guda galno fiidiyoga meeshan horta waxaa noogu diyaarsan 4 qayb oo kamid ah qudaarta noocyadeeda kala duwan ama fruutka qof walba waxbay u taqaanaa Soomaha marka meeshan cabitaan kal iyo laab ah cunugaaga ama ilmahaaga aad kula korinayo ayaan kuugu hayaa maanta insha Allah biidnillah waayo gabdho badan oo waxaan arkay aad u weyn uga cabanayo ilmihii nafaqo la'aan uga dhacday abiteedkii oo ka xirmay cunuga cunto inuu si qaadaneynin hooyo walba waxa haboon inay garato waxyaabaha cunugeeda uu qaadan karo iyo waxyaabaha macnaa jirkiisa uusan u ogoleen inuu qaato fiidiyoga hadaa gudaha u galno meeshan waxaa noogu diyaarsan qayb kamid ah qara waaye ama xabxab qaabka u taqaan qof waxbay u taqaanaa saxankan dhalada ahna asagana waxaa ku jira 3 nooc oo kamid ah qudaarta aan shiidi rabo waxa waaye waa babaay qayb kamid ah 2 xabo isbaandhees ah iyo xabad camba ah afartaas ayaan isku daraa wax sokor aan ku daraayo malahan hal galaas oo biyo bis aan ku daraaya insha Allah biidnillah ilmahaaga haday koox ay yihiin waa ka badsanaysaa intaas ilmaha aan cuntada aan cuneynin waxaan nii sheegayaa gabdho inaadnan cabitaanaadka aadan biyo badan aadan uga darin cabitaankiyo seeka ah siiya wax sokoraan ha uga dhaweynina haddii aad u baahan tahay sokor wax yar waa ku dari kartaa qaadada afkeeda horeeto cabitaanaadkan ilmaha jirkooda aad ay ugu baahan yahay waayo waxyaabo badan oo waxa ku jira minerals waxyaabo badan waxa ku jira fitamiinaad badan oo jirka ilmaha soo dhisayo koriimadooda kor u qaadayo xusuustooda lafahooda maasha Allah hooyooyin badan waxa jireen yiraahdeen waxa noo soo gelisaa cabitaanaadka ilmaha la siiyo sanad ilaa 4 iyo 10 iyo 15 sano marka waxaan ii sheegaa gabdho cabitaankan baby walba ayaa la siin karaa wala midka 6 bilood ka bilowday kaliya systemka aad isugu dirdiraysid ayaa wax yar ka kala bedelay hada cabitaankan ilmaha jiraan 6 bilood waa la sii karaa laakiin wax yar yar ka soo qaadanaysa qaab yar yar isugu daraysa way calooshooda wali wax badan uma sabaran cunuga sanadka ku gaaran maasha Allah tabaaraka raxmaan gabigooda sana isugu dare waa u sameynaysa cunugaaga fridge-ka u gelinaysa hadaad heysana markaas siinay gabdho badan oo u baahan ilmaha cunto diidka ah waxyaabo ka caawi karo booska cuntada cabitaanaadka seekada ah waad gasha kartaa qudaarta ayu nooc isku dardare kabacdi waxa sameynay waa siisanaysaa cunuga waa loo miiraa ilmaha waxyaabaha carabka qaqabanayo kaleeto waa laga miiraa si cunuga uu cabo ilmaha cuntada waa loo kala bedelaa waxyaabo badan oo uu si wanaagsan waa nila soo wadaagaya insha Allah biidnillah intan aad jeedin waa isku daraa insha Allah waa la soo shiidaa markii la soo shiido soo miiraa waxa is iraaday gabdhii walaalaha ahaa oo u baahnaa cabitaanaadka ilmaha waxtarka u lahaa la wadaag fiidiyogan maadaama aad sameynaysid marka waan ila soo wadaagay waa kana cabitaankan 4 nooc waaye afartaas nooc mid kasto wuxuu leeyahay fitamiin u gaar ah waxa dhan waa wax dabiici ah oo wadan kale ah qof walba wadankay joogto qudaarta keeleyso waxa loo baahan yahay in macnaha ay isticmaasho intaan waa isku darsanay waa shiiday waa miiray cunuga waa siisanaysaa muhiimad ma ahan caloosha hal mar badan in raashin badan cunuga caloosha loo geliyo muhiimada waxay tahay ilmaha wax yar markiiba inaad siidid si uu u baahdo mid kaleeto ilmaha mar walba waxa ugu dadaashaan biyaha cad
biyaha cad oo weliba kuwa nadiifka ah aad ugu dadaala si maqaarkooda ilmaha uu u qoyo. Cunuga hadaa aragtid waxba aan cuneynin ama aan saxarooneynin waxaa ogaataa abiteedkaas cunugaas weligiis inuusan furmeen haddii cunuga calooshiisa aysan soconeyn. Caloosha mar walba ay socoto cunuga waxay ka qayb qaadanaysaa in uu baahdo baahi fara badan uu dareemo, waayo wixii horeeto wasaqda horeetaa baxeyso meeshii caloosha waxay u baahaneen marka wax cusub in lagu shubo. Marka waxaa ku dadaashin had iyo jeer ilmihiina calooshooda si u jilcileed waxaa jilciyo biyaha cad aad ugu badiyo waxyaabaha kaleeto caloosha ilmaha socodsiiyo si abateedka ugu furmo. insha Allah waa soo gelinayaa. waxaa jiraan oo kaleeto waxyaabo badan oo la soo weydiiyo oo gabdhaha soo weydiiyeen ay kamid yihiin waxyaabaha cuntada ilmaha u furo. Ilmaha horta sanadka ka yar ilaa adii 3 sanaba aa dhaho sharoobo waxaa jirta oo goojo ah. goojo waxaa la yiraahdaa mid oo waxay wadataa fur yar ee wadataa oo macnaha lagu dhibcinayo cunuga afka ama hadii kaleeto afka looga shubaa. goojadaas marka waxaa loogu talagalay 3 sano ilaa 6 bilood ilmaha jiro. waxay leedahay lambarka 25 aad tusaale ahaan ugu geynaysaa boonti 25 ama meel ku qoran eber dhibic 25 fahamteen 0.25 meel ku qoran tahay ayaa ugu geynay cunuga 6 bilood haduu jiro. haduu ka weyn yahay waa ugu kordhinaysaa 10 ml waxsaas camal siine. waxaa jiraan sharoobooyin kaleeto oo ayagana maasha Allah ilmaha aad kula kaalmo badan aad ka dareemaysid in abiteedka uu u furmo cunugaaga ka noqonayo wakiil. sharoobooyinkaasna ayagana waa niila soo wadaagaya haduu Ilaahay idmo oo ilmaha abiteedka xun abiteedka u furaayo baahi badan ku ridaayo si u cunaan cuntooyinka. gabdho fiidiyoogan waa kana abitaanka waa soo shiiday waa soo miiray bakeerigan ama koobkan ayaan ku soo shubay maasha Allah lagama sheekay karo dhadhanka asaga dhan uu ismaaj gareeyay kala arag waaye dhadhankiisa ajaa'ib waaye. ilmaha san camal loogu sameeyaa cabitaanaadka si cunugii oo cunug nafaqeysan oo kuugu noqdo. ilmaha hadaa aragtid aragooda xoogaa daciif iska ah ama siyaabo kaleeto jirkooda oo qalalan waxaa laga yaabaa fitamiinad badan jirkooda inay ka maqan yihiin. saali ajligeeda ku dadaal cunugaaga mar walba waxyaabaha nafaqada jirkiisa soo celinayo si aad uga qayb qaadatid korinshihiisa iyo caafimaadkiisa. mar walba cunugaaga uu caafimaad qabo mar walba uu xanuunkiisa uu yar yahay. waa kana hada cabitaankiisa waaye lagama sheekay karo. halkaan ku soo shubay kala arag waaye. maasha Allah tabaaraka raxmaan intaan haysan Allah siiyo intii haysatana Allah barakeeyo. waxaan leeyahay anagana Allah noo barakeeyo. soo dhawaada hadii aan ugu cusubtaa please si share gareey like saar gambaleelkana furo daawadaha ugu horeysa u noqotid. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.